kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya Cabdiraxmaan Ciro oo heegan buuxa geliyay ciidanka Somaliland amar culus oo loo dul dhigay tallaabooyinka ciidanka ay qaadayaan dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay oo hadda socda cabsida ay wajahayaan Djibouti iyo sidoo kale waxa ka socda Awdal Berbera iyo goobaha kale ee ku teedsan Turkiga oo mucaaradka Muqdisho ku sugan xujo hor dhigay kala qaybsanaanta xubnihii golaha mustaqbalka fashil culus oo hadda ay wajahayaan iyo sidoo kale waxa daawan doontaan tallaabo culus oo ay qaadeen golaha wasiirada magacaabis dhawaan la sameeyay wararkii ugu dambeeyay Iran oo soo riday diyaarad ay Mareykanku leeyihiin iyo sidoo kale waxa ka socda bariga dhexe ayaa daawan doontaan balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso like saarto meel fog gaarsiin qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga ee warbixinada halkan inuu kusoo gudbina adigoo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale furo gambaleelka digniinta aragtadana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeba waa hagaag waa 16 bisha July haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarkaad ku daawateen markana adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka markasul ihsaan online waxay diyaar la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Somaliland ayaa heegan buuxa geliyay ciidanka Somaliland kadib markii ay si dardar la ku bilowdeen dhaqdhaqaaqyada ciidan ee socday waqtiyadii ugu dambeeyay ee ka dhana Djibouti waxaana si weyn hadda u socda tallaabooyin aad u culus oo soo taraya tanina waxay qayb weyn ka tahay dhaqdhaqaaqa guud ee xukuumadda Ciro ay ugu diyaar garowday inay soo afjarto xubnaha ay sahayaan iyo sidoo kale tallaabooyinka halista ah ee ku wajahan dhinaca iyo Somaliland kadib markii Djibouti ay qaaday tallaabooyin dheeraad ah cabsi badanna abuurtay sidoo kalena sii xoojisay dhaqdhaqaaqa hadda socda iyo sidoo kale waxa lagu tilmaamay in ay si weyn u argoosanayaan dhinacyadan sida gaarka hadda uga soo horjeeda Somaliland kadib markii ay qaadeen tallaabooyin khatar badan abuuray xukuumadda Ciro ayaa xoog saaraysa sidii ay u soo afjari lahayd dhacdooyinka qaybtood waxaana ay markaasi hadda xooga isugu geeyeen sidii markale loo dardargelin lahaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay xukuumadda Ciro ugu diyaar garoobayso inay ku difaacato tallaabooyinka ay hore u qaaday iyo waliba tan aqoonsiga oo lagu tilmaamay inay tahay tii ugu weyneed oo durbaba lagu muujiyay inay yihiin tan ugu horeysa ee xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro markasta ay dagaalkan u galayso waxa Ciro uu dhaqdhaqaaqan sii xoojiyay kadib markii ay kordheen dhacdooyinka waaweyn ee la xiriira tallaabooyinka aad xasaasiga u ah waxaana xukuumaddiisu markale ay ku dhawaaqday inay iska difaacayaan cadawga gudaha iyo kan banaanka oo ay ugu yeereen dhinacyada hadda ay ishayaan tallaabadan ay qaaday xukuumadda Somaliland ayaa lagu tilmaamay ama lagu sifeeyay mid ay si guud uga gudagelayso xaaladda la xiriirta dhaqdhaqaaqyadan aadka u culus iyo waliba tallaabooyinka ku saabsan dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyada oo ay u muuqato in ay markale xukuumadda Ciro ay dardar gelinayaan qorshayaal waaweyn oo ay masiiri u arkaan sidoo kalena ka dhigan mid xaaladda sii adkeynaysa waxaa tan iyo markii lagu dhawaaqay in ay dhaqdhaqaaqyadan yihiin kuwii ugu waaweynaa ee socday maalmihii lasoo dhaafay ay markaasi xaaladda guud ee gobolka Awdal ahayd mid aad u qasan iyada oo Djibouti ay dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaasi ka wadeen dhinaca kalena waxa ay Somaliland ku dhowdo iyana wadeen tallaabooyin kale oo isku difaacayaan si ay uga hortagaan dhinacyadan lagu tilmaamay cadawga Somaliland oo ah kuwa markaasi aad ugu xoogana inay qaadaan tallaabooyin aad u culus iyo dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo hadda lagu muujinayo in heerkii ugu sareeyay ay isla gaareen Ciro ayaa ku goodinaya in marba marka ka dambeysa xukuumaddiisu ay qaadayso tallaabooyinkan iyo kuwa kale oo waaweyn oo ay isku difaaci doonaan iyada oo ay hadda diiradda saarayaan sidoo kale arrimihii ugu waaweynaa ee doodaha qaarkood abuuray waxaana ay u muuqataa sidoo kale in ay si gaar ah
ay hadda usii xoojin doonaan dhinacyadani, iyada oo ay damicii ugu weynaa ee Jabuuti ay ka lahayd gobolka Awdal iyo Somalilandba hadda uu noqonayo mid ku soo dhammaanaya in lagu kala adkaanayo qorshahaasi, oo ay u muuqan doonto sidoo kale mid tallaabooyinkan iyo dhacdooyinkan si gaar ah xoogga ay isugu geen doonaan, oo weliba ay markaasi mar kale tallaabooyin waaweyn oo aad u culus ay u qaadi doonaan. Waxaa xogaha aynu helayno oo muujinaya tallaabooyinkan inay sii adkaanayaan, xaaladuna ay kasii darayso, ay mar kale u muuqataa in ay si degdeg ah u qaadi doonaan, sidoo kalena ay sii adkeynayaan Jabuuti iyo sidoo kale Somalilandba tallaabooyinka aadka u culus ee hadda socda iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee arrimahan la xiriira. Markana dhinaca kale haddii aynu eegnana, waxaa Turkigu uu xujo la hordhigay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee diidan in la qaado tallaabooyinka waaweyn ee aadka u culus iyo dhaqdhaqaaqyada lagu tilmaamay inay yihiin kuwii ugu waaweynaa ee farqiga badan abuuray. Xogaha hadda aynu helayno ayaa muujinaya inay sii kordheen tallaabooyinkii ugu dambeeyey, waxaana ay hadda u muuqataa sidoo kale in dhaqdhaqaaqyadan ay xoogga saari doonaan, iyada oo ay mar kale dardar gelinayaan tallaabooyin kale oo culus. Turkiga ayaa isugu geeyey awoodiisa sidii uu kusoo afjari lahaa tallaabooyin aad u culus oo socday iyo dhaqdhaqaaqyo lagu tilmaamay in ay yihiin dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka socday goobaha qaarkood, oo weliba aad ay ugu tilmaameen dhinacyadu in ay markaasi kasii darayeen, sidoo kalena la xoojiyey tallaabada iyo dhaqdhaqaaqa aadka u cusleynayay. Xaaladda guud ee arrinkan ku saabsan ayaase waxa ay tahay hadda mid u muuqanaysa in ay sii dardargelinayaan oo ay xoogga isugu geenayaan sidii ay kusoo afjari lahaayeen. Waxaa xogaha aynu helayno ay sidoo kale muujinayaan in Turkigu uu markan ka shaqeynayo mid ka mid ah tallaabooyinkiisii ugu waaweynaa, waxaana uu dardar gelinayaa sidii sidoo kale uu kusoo afjari lahaa dhaqdhaqaaqa guud ee ku aadan arrimaha sida gaarka hadda ay isugu hayaan ama ay markaasi ku xoojinayaan tallaabooyinkooda ugu dambeeya. Xukuumadda Ciro uu hogaamiyo ayaana xooggeeda isugu geynaysay sidoo kale sidii ay uga faa'iideysan lahayd fursadaha waaweyn ee ka jirta gudaha Soomaaliya, kadib markii mucaaradka iyo dowladda oo aad markaasi isku haya ay gaartay arrinkoodu in ay mashquulisay arrimaha kale ee dalka qaybihiisa kale ka socda, sida waxa ka socda Puntland, tan Jubbaland ka socda iyo midda Somaliland ka socota, oo ay 2024 dowladda Soomaaliya tallaabooyin waaweyn u qaaday kadib markii Ethiopia isku dayday damac badda la xiriirta. Markaasi wixii ka dambeeyay mucaaradka Muqdisho waxay cadaadis saareen dowladda Soomaaliya, waxaana fursado ay u noqdeen dhinacyada Puntland, Somaliland iyo Jubbaland in ay markaasi dowladda kula loolamaan awoodda guud iyo sidoo kale tallaabooyin kale la qaaday. Turkigu hadda waxa uu qayb ka yahay dhinacyada markaasi ku guudinaya tallaabooyinka la qaadayo, iyada oo xogaha aynu helayno ay muujinayaan inay sii kordhayaan tallaabadii ugu dambeysay ee arrimahan la xiriirta iyo dhacdooyinka aadka u culus ee waaweyn ee markaa lagu tilmaamayo in ay kordhinayaan tallaabooyin ay qaadayaan. Sidoo kalena mucaaradka Muqdisho ayaa qaarkood hore u taageeray go'aano Puntland, Somaliland iyo Jubbaland ay gaareen, waxaana ay markaasi hadda culays xoog la saarayaan dowladda Soomaaliya, taasi oo ay u muuqato in ay uga sii darayso xaaladda guud, iyada oo weliba Turkigu uu u muuqdo mid dana gaar ah ama dana shakhsiyaad gooniya kale dhinaca iyo markaasi dowladda dhexe, waxaana ay hadda xoogga saareen tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo la xiriira arrimahan kala duwan iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee taagnaa maalmihii lasoo dhaafay. Xogaha hadda aynu helayno ayaana muujinaya inay sii kordhayaan, in ay markaasi tallaabooyinkan ay hadda xoojiyeen, sidoo kalena ay qaadeen tallaabooyin aad u culus iyo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo maalmihii ugu dambeeyay socday, iyo in ay markaasi uga sii dartay xaaladda guud ee taageerada markaasi ay siinayaan. Wararka aynu helayno ayaana hadda sheegaya in la xoojiyey
dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee arrimaha qaarkood markaasi diiradda lagu saaray, iyada oo ay weliba xooga saarayaan qeyb ka mid ah dhacdooyinka dhinacyadan ugu dambeeya ee tallaabadan sii xoojiyey. dhinaca kale markan haddii aynu eegnana, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabo weyn oo aada u culus. golaha wasiirada ayaa waxa ay kulan ay ku yeesheen xarunta golaha wasiiradu ay maanta ku ansixiyeen tallaabooyin waaweyn oo la qaaday oo qaarkood lagu sheegay magacaabis iyo dallacsiin la xiriirtay hay-adaha dowladda, kuwaasi oo isugu jira xilal diblomaasiyadeed iyo sidoo kale maamulka rugta ganacsiga Soomaaliyeed. golaha ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay magacaabista Cabdifataax Maxamed Ibraahim oo loo magacaabay xilka danjire, iyo sidoo kale tallaabadan iyada oo loo qaaday in ay qeyb ka tahay xoojinta howlaha diblomaasiyadeed. sidoo kale waxaa golaha wasiiradu ay go-aamiyeen in Shaafici Nuur Calas loo dallacsiiyo danjire, markaasi darajada danjiranimo, taasi oo muujinaysa kalsoonida dowladda ay ku qabto waayo aragnimada iyo doorka uu ka qaatay adeega diblomaasiyadeed. dhinaca kale waxay golaha wasiiradu ay magacaabeen gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed kadib markii ay markaasi si rasmi ah loo kala diray maamulkii hore ee rugta. xilka gudoomiyaha ku-meel gaarka ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa loo magacaabay Yaasiin Maxamuud Cibaar, kaasi oo hogaamin doona rugta inta laga soo dhisayo maamul cusub oo waafaqsan habraacyada iyo shuruucda u degsan. sida markaasi xogaha la helayo ay muujinayaan, magacaabistan ayaa la filayay in markaasi ay dardar geliso dib u habeynta rugta ganacsiga, iyada oo ay xooga saari doonaan tallaabooyinkan loo qaaday. arrimahan waaweyn ayaana lagu muujiyey inay yihiin kuwii ugu dambeeyey markaasi loo qaadayo tallaabooyinka durbabo markaa horseedaya xaaladaha ugu dambeeya ee la xiriira dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ee loo qaaday tallaabooyinkan. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno wararka caalamkana, Iiraan ayaa waxay sheegtay inay soo riday diyaarad Mareykanku leeyahay, iyadoo ay dagaaladu ay sii kordhayaan. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in ay soo riday diyaarad dagaal oo nooca MQ-9 Reaper ah oo uu leeyahay Mareykanka, xilli ay sii xoogeysanayaan iska hor imaadyada military ee u dhexeeya Tehran iyo Washington. Iiraan waxa ay sheegtay in diyaaradda la soo riday ay ku duuleysay hawada magaalada Andimeshak ka hor inta aan la beegsan. sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan, diyaaradda ayaa lagu soo markaasi riday nidaam casri ah oo difaac cirka ah. ciidamada waxay ku tilmaameen howlgalka mid looga hortegay wax ay ugu yeereen xadgudub lagu sameeyey hawada dalka Iiraan. wakaalada wararka ee Tasnim oo xiriir dhow la leh ciidanka Iiraan ayaa baahisay in howlgalka lagu burburiyey diyaarad Mareykanku uu leeyahay oo si buuxda markaasi loogu guuleystay. si kastaba tallaabadan Iiraan waxa ay warbaahinta ay markaasi Iiraan u sheegeen ama u soo bandhigeen in ay markaa la wadaagi doonaan dhaqdhaqaaq kasta oo la xiriira tallaabooyinka Mareykanka iyo diyaaradahooda lagu beegsanayo, iyadoo weliba wax sawirra aysan ama cadeymo rasmi ay soo bandhigin. haddana waxaa jira sheegashada Iiraan ee la xiriirta weerarkaasi iyo in lagu ekeeyey tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo arrimahan la xiriirta. guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.